nebi ibraahim wuxuu dhalay isxaaq, isxaaqna wuxuu sii dhalay yacquub, yacquubna wuxuu dhalay yuusuf calayhi salaam. nebi yacquub calayhi salaam waxaa lagu naanaysi jiray israa'iil, waayo 12 wiil ee uu dhalay nebi yacquub calayhi salaam waxaa ka faracmay reer banu israa'iil. kutubta ay leeyihiin reer bani israa'iil ama ay samaysteen waxaa ka buuxa beeno badan oo ka sheekeynaya qisada nebi yacquub calayhi salaam. beenahaasna waxaa ka mid ah in yacquub iyo ilaahay habeen dhan ay istilayeen, markii waagu baryena yacquub ayaa guulaystay, waa si ay leeyihiin. kadib markuu yacquub ilaahay ka guulaystay, ilaahay ayaa ku dhahay waad iga badisay maanta wixii ka dambeeyey waan ku barakeyn doonaa, magacaagana waxaa laga dhigi doonaa israa'iil, waana sida ku xusan buuggooda Genesis. nebi yacquub calayhi salaam sidii aabihii iyo awogii ayuu diintii dadka sii barayay, waa diintii nebi ibraahim calayhi salaam, oo weli diin cusub may soo degin. intii dadka diinta ugu baaqayay nebi yacquub calayhi salaam waxaa ka hor yimid dad aad u badan, waxayna weydiiyeen ama ku dhaheen natus caddeyntaasoo muujinaysa inaad tahay nebi alla soo diray. alla subxaana watacaala mucjisooyin badan ayuu siiyey nebi yacquub calayhi salaam. mucjisooyinkiisana waxaa ka mid ahaa in dhawaaqiisa ama qayladiisa laga maqli jiray magaalooyin kale iyo waddamo kale oo aad fogfog, waxaanu lahaa mucjisooyin aad u badan. nebi yacquub calayhi salaam waxa uu qabay 2 hablood oo abtigii dhalay, 2 hablood oo walaalahaa. shareecadii nebi ibraahim calayhi salaam ayaa saas ahayd, laakiin shareecada nebi maxamed tani waa ka mamnuuc. nebi yacquub calayhi salaam wuxuu abtigii ka codsaday inuu guuriyo gabadhiisa raaxiil, abtigiina ku aqbalay, laakiin wuxuu ku yiri shuruudaas oo ah inaad 7 sano aad adhigii raacdid. kadib 7 sano marka dhamaatay ayaa habeenkii gabadhii la soo xareeyay. kadib subaxii markii uu soo kacay nebi yacquub calayhi salaam ayuu arkay gabadhu inaan ahayn raaxiila oo ay tahay walaasheedii ka weyneyd oo la odhan jiray layaa. kadib nebi yacquub calayhi salaam ayaa abtigii ku dhahay miyaad khiyantay, anuu gabadhii aan ku weydiistay imaad siin ee waxaad siisay tii kale. kadib abtigii ayaa ku dhahay gabadha weyn oo joogta teer lama guurin karo, markaad tan yar doonaysid waa in 7 sano kale aad adhigii raacdaa, markaas ayaan iyadana ku siinayaa. kadib 7 sano markii dhammaatay ayuu guursaday raaxiil. raaxiilna wuxuu dhashay nebi yuusuf calayhi salaam iyo wiil kale oo la dhaho benyaamiil. nebi yacquub wuxuu dhalay 12 wiil, 12ka wiilna waxaa nebi ka noqday nebi yuusuf calayhi salaam. laga soo bilowbo nebi yuusuf calayhi salaam ilaa nebi daa'uud iyo sulaymaan, intii u dhaxaysay waxaa nebi laga dhigayay reer bani israa'iil ilaa maanta ma cunan cadka boodida ku yaala, sababtoo ah waxay aaminsan yihiin markii ay dhaheen wax isdhaayay yacquub iyo ilaahay ayaa boodida ka taabtay nebi yacquub. kadib saa daraaddeed iyagu ma cunaan cadka. qisada nebi yuusuf marka laga sheekeynayo waxaa lagu soo dhex daraa ama halkaas laga hadlaa qisada nebi yacquub calayhi salaam. saas daraaddeed qisada nebi yacquub way kooban tahay, marka anagu halkaas ayaan ku daynana oo halkaas ayaan ku joojinanaa, maadaama ay qisada khuraafaadkeedu iyo khiyaaligeedu way badan yihiin. saas daraaddeed halkaas ayaan ku joojinanaa. intaas ayaan u eegtay maanta qisadeena, inta ku kulmano qisa lamid ah waxaan naga teganaa sidaas. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. وحي من القصص التي دلت على الله الجليل، قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل، تالله ليس لها مثيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل، وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل.